Madaxweynihii Mareykanka ee John Kennedy gacmaha ayuu kor u taagayay isaga oo u ruxayay dadweynihii wadada dhegeeda tubnaa. Gaadhigiisii uu saarnaa ee dusha feednaana waxa uu dhex marayay buuraha yaryar ee cawska doogga ahi ka baxo ee ku yaala meesha la yidhaahdo Dealey Plaza ee magaalada Dallas. Waxaana barbar fadhiday xaaskiisii Jacqueline, iyada oo kolba dhoolla caddaynaysa, dadka tubanna gacanta u ruxaysa, dadkaas oo ay tiradoodu marba marka ka dambaysa si tartiib tartiib ah u sii yaraanayeen, maadaama oo ay wafdigu ka soo fogaanayeen jaamkii dadweynaha ee magaalada bartankeeda ahaa. Waxaa gaadhiga la saaran John Connolly, oo ah madaxii gobolka Texas. Isaga iyo xaaskiisuba waxa ay fadhiyeen kuraasta dhexe ee madaxweynaha iyo marwadiisa ka horreeya. Maalmihii ka horreeyay booqashada Kennedy uu ku tegayay maamulka Texas waxa ay ahaayeen ayaamo ay dabaylo jireen, cimiladuna ay xumayd oo ay roobab dabaylo wata da'ayeen, samadana ay heelimaasayeen daruuro waaweyn oo madmadow. Waxa ay culimada saadaasha hawadu hilaadiyeen in ay cimiladaas xuni sii soconayso, balse Kennedy waxa uu dareen weyn ka qabay in ay cimiladu hagaagi doonto. Umanuu joojin daraskii culimada saadaasha hawada, waxaana uu soo gashaday maryo khafiif ah. Sidoo kalena waxa uu go'aansaday in aanu baabuurta dadin oo ay iska ahaadaan kuwo dul faydan, si uu dadweynaha si dhow ugu salaamo. Sidii uu filayayna wax yar uun ka hor intii aanu tegin ayuu jawigii daruuraha lahaa noqday sidii uu awalba filayay, si kedis ah ayuuna caadi ku noqday. Qorraxdiina way soo baxday, taas oo lid ku ahayd saadaashii ay aqoonyahanku sheegeen. Waxa ay wafdigu u soo dhowaadeen mid ka mid ah waddooyinka qallooca ee xaafadda Dealey Plaza, taas oo ay hareeraheeda filiirsanaayeen qaar ka mid ah taageerayaashiisu. Waxa ay baabuurtiisii raaceen waddadii tirada ahayd ee taagaga yaryar ee doogga ah dhex maraysay. Darawalkii gaadhiga madaxweynaha waday xawaarihii ayuu dhimay, si la mid ah sidii uu sameeyay darawalka wada gaadhiga hor socda ee isna wafdiga ka tirsan. Si lama filaan ah, dhawaaq rasaaseed ayaa loo maqlay. Jidhkii Kennedy waa uu gariiray oo ku negaaday sidii uu ahaa ee u fadhiyay. Waxa uu qabtay cunihiisa isaga oo kelmado dhowr ah ku qaylinaya oo leh, Ilaahaygow, waa ay i toogteen. Waxa uu gacantiisii saaray afkiisa isaga oo aan awoodin in uu hadlo, iskuna dayaya in uu joojiyo dhiiggan ka soo qulqulaya. Waxa uu isku dayay in uu hore u foorarsado, balse wuu awoodi kari waayay. Xaaskiisii ayaa dhinaciisa u soo booday iyada oo weydiinaysa waxa helay. Waxa ay jidhkiisii ku soo qabatay gacmaheedii oo ay mid ahaan hareeraha ka marisay, halka ay gacanteedii kalena ku soo jiiday badhimada shaadhkiisa, iyada oo si dhiilo leh ugu qaylinaysa, Johnow, maxaa dhacay? Maxaad la qaylinaysaa? Ilbiriqsigii xigay ayuu guddoomiyihii gobolka Texas, oo isna la toogtay, u soo janjeersaday dhinaca xaaskiisii Neely, taas oo fadhiday dhinaca bidix ee kuraasta dhexe ee gaadhiga. Qayladiisii oo argagax leh iyo waxa isku darsantay baroorta xaaskiisa. Beerka ayuu u jiifsaday, waana uu qaylinayay ilaa uu kooma ka galay. Rasaas kale oo isku dhowdhow iskuna eeg ayaa iyaduna dhacday. Waxaa ka soo dhex baxday xabad rasaas ah oo midii hore keliya ay u dhaxaysay muddo 6 ilbiriqsi ah, oo inta ay xagga dambe ee madaxa Kennedy ku dhacday ayay ka soo baxday dhinaca midig ee madaxa, iyada oo jebisay qayb ka mid ah lafta madaxiisa. Yaa Ilaahi, waa ay dileen, Johnow. Jacqueline ayaa qaylada quusta leh ku tibatay. Waxaa gacmaheeda wasakheeyay dhiiggii diiranaa ee ninkeeda, waxaana uu dhiiggu ku fiday gaadhiga oo dhan, isaga oo gaadhay wax kasta oo dhex yaalay. Xataa ubixi waxa uu midabkiisii isku beddelay midabka dhiigga. Jacqueline waxa ay eegtay gadaasheeda, waxaana ay halaacsatay Colin Hale oo ka mid ah askarta kooxda qaabilsan ammaanka madaxweynaha, oo u soo ordaya dhinaca gaadhigooda, kadib markii uu ka soo booday gaadhigii uu la socday ee wafdiga ka midka ahaa. Waxa uu soo ordayay tan iyo markii xabaddii ugu horreysay la riday, waxaana uu ahaa midka kooxda ugu dheereeya uguna baraarugsanaanta badnaa. Dareen badnaantiisa awgeedna saaxiibadii ka hor ayuu ogaaday in ay xabadi haleeshay madaxweynaha. Markaas ayuu isa soo qaaday isaga oo badbaadintiisa isku dayaya, waxaana uu qabsaday gaadhiga madaxweynaha xaggiisa dambe. Waxa uu u xejisay si ka fiirsasho leh, waxaana uu lugtiisa saaray jaranjarada dhinaca bidix ee dambe ee gaadhiga ku taala. Isla daqiiqadahaas ayuu taliyihiisii Raul Kellerman u qayliyay darawalkii gaadhiga isaga oo aan arkin waxan uu askarigu samaynayo, waxaana uu ku qayliyay,
waar eri gaadhiga. Si xawli leh ayuu gaadhigii hore ugu dhaqaaqay. Markaas bay bilowgiiba lugtii Clean Hayl ay ka siibatay salaankii dambe ee ay saarnayd. Kadibna Jacqueline ayaa dhinaciisa isku soo qaaday si ay Clean u caawiso. Waxa ay jidhkeedii oo dhan ula foorasatay dhinacii dambe ee gaadhiga, waxaana ay soo jiiday ninkii ka hor intii aanu dhicin. Dhaqsaba markii uu Clean u fuulay gaadhigii, waxa uu isku beegay jidhkii madaxweynihiisii la toogtay, isagoo uu isku dayaya in uu rasaas kale ka ilaaliyo, balse rasaastii waa ay joogsatay kadib markii ay ujeedadeedii Kennedy ka gaadhay. Kooxda ammaanka madaxweynaha sugaysay hogaamiyahoodii waxa uu ku qayliyey moobilkii ateenada lahaa isaga oo guddoomiyihiisi la hadlaya oo ku leh waa la toogtay madaxweynihii iyo guddoomiyihii gobolka ee noo kaxeeya cusbitaalada mid ka mid ah. Muwaadiniintii badnaa ee wafdiga ag tubnaa isla judhii ay sanqadha rasaasta isxigxigta ay maqleen ayay beerka isku tuureen. Daqiiqado yar gudahood ayay xaaladii isku beddeshay. Farxaddoodii ay madaxweynaha ku qaabilayeenna waxa ay noqotay argagax iyo cabsi. Darawalkii isagu gaadhiga xawaare sare ayuu ku kaxeeyey, isaga oo ka fogeeyey goobtii xabadaha laga soo ridayay, waxaana uu rajo weyn ka qabay in uu isku daygii dilku uu fashilmay. Daqiiqado yar kadib waxaa aaggii isku xeeray ciidamo adag oo diyaarsan, waxaana la bilaabay howlgal ballaadhan oo baadhitaan ah. Isla xilligaasna waxaa baabuurkii Kennedy uu gaadhay dhakhtarka Parkland. Hareeraha gaadhigana wariyeyaashii ayaa isa soo ag tubay, balse ciidankii ammaanka ayaa ka fogeeyey. Aagga oo dhan waxaa ku habsaday argagax, baqdin iyo jahawareer. Gudaha dhakhtarka iyo dibaddiisaba waxaa kor u kacay buuqii dadka uu warwarku ka muuqdo ee meesha isa soo dhoobay. Dareenno iska soo horjeeda oo xanaaq iyo ka xumaanshaba leh ayaa dadkii ka muuqday. Shaqaalihii gurmadka degdega ahaa ayaa kolkiiba yimi. Waxa ay Kennedy si degdeg ah ugu kaxeeyeen gudaha, isaga oo weli geerida la baaxaadegaya. Waxa ay u daba roreen dhinacii qolka qalliinada. Dabaddana sarkaalkii Clean Hayl iyo xertiisiiba waxa ay u dhaqaaqeen sidii ay ula socon lahaayeen xaaladda madaxweynaha, una sugi lahaayeen ammaanka dhakhtarka. Gudaha qolka qalliinkana waxa ay qaar dhakhaatiirtii ka mid ahi ku qaabileen madaxweynahoodan la toogtay. Mid kasta oo ka mid ahi waxa uu u degdegay sidii uu u kaalmeyn lahaa, halka uu dhakhtarkii dhallinyarada ahaa ee Kenny Sailer uu isagu u degdegay sidii uu maryaha uga bixin lahaa madaxweynaha. Si kadis ah ayuu u arkay in uu Kennedy xidhan yahay beel maryihiisa ka hooseeya. Waxa uu beelku ahaa nooc culus oo ku wareegsan laabtiisa iyo dhabarkiisaba ilaa dhexda si uu xanuunka uga yareeyo. Waxa uu markaas gartay in Kennedy uu la tacaalayay xanuun dhabarkiisa muddo hayay, laakiinse markii uu jidhka Kennedy ka saaray beelkii, waxaba uu arkay siliskaas ka soo muuqday laabtiisa ee qoorta ugu jira. Sailer hareerihiisa ayuu eegay si uu u hubsado in aanay cidi arkayn waxa uu falayo. Maryihii Kennedy dhinac ayaa si danayn la'aan ah loogu tuuray. Ma jiro qof daqiiqadahan fiirinaya, laakiinse dhaqso waxa uu iman doona dambi baadhayaashii si ay u baadhaan dhammaan alaabadiisa ka hor inta aan jidhkiisa loo iman. Marka ay xilliga gaadhana, silisku halkan ma sii yaali doono. Sidaas ayuu Sailer naftiisa kula hadlay. Isla markii uu ka saaray siliskii qoorta Kennedyna waxa uu dhex geliyey maryihiisii iyada oo aanay cidi u jeedin, waxaana uu shaqadii loo xil saaray u dhammaystay si wanaagsan oo ah tabtii laga rabay. Waxaa ku soo biiray saaxiibadii, waxaana soo gaadhay dhakhaatiir kale oo uu ku jiro dhakhtarkii gaarka ahaa ee madaxweynaha. Waxa ay ku soo urureen jidhkan madaxweynaha ee furaashka dul wadhan. Waxa uu jidhkii Kennedy yeeshay midab cad oo badhax tiran, waxaana uu ahaa mid si dhib leh u neefsanaya kadib markii xaddi badan oo dhiig ahi uu ka baxay. Nabarka madaxa ka soo gaadhay tan iyo xilligii la toogtay ilaa intii ay jidhka ku soo jireen, iyo weliba gudaha qolka qalliinka waqtigii ay joogeenba, si joogto ah ayuu u dhiig baxayay. Waxa ay dhakhaatiirtii isku dayeen in ay si kasta ugu gurmadaan. Jidhkiina waxa uu u nuglaaday isku daygoodii fashilmay ee ay ku doonayeen in ay dib ugu soo nooleeyaan. Balse saacad badh kadib, dhakhaatiirtii mid mid ayay qolkii uga soo baxeen. Intaa kadibna waxa ay tiifiyadii baahiyeen in madaxweynihii Maraykanka ee John Kennedy, kaas oo ahaa madaxweynihii 35aad, uu u wareegay caalamka aakhiro. Daawada xilqadda koowaad halkaa haynoo joogto. Ta xigta waxaynu kaga hadli doonaa sirta culus ee siliska Marduukh ku duugan, innaga oo bersamaadkii Baabil iyo boqor Xammurabi dib ugu noqonayna. Ha u daymo la'aan xilqadda xiisaha leh.